السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي الكسو دواد وربحين كسابسان قرح بيروت رحي اي دادك بدن كل انتان محو كذا شيء. لبنان اياغا شيء حالد مروقاها كدب مركي قرح وين وكدعي عاصمة بيروت ودلي ويران بقول قف halka dhaawacuna ka badan yahay 4,000 qaraxa oo ka dhacay dekedda magaalada ayaa ruxay caasimada oo dhan. madaxweyne Michel Aoun ayaa sheegay in 2,750 tan oo ah maadada ammonium nitrate si aan amni ahayn loogu keydiyay maqsin halka ku yaalay muddo 6 sano ah. cisbitaalada ayaa waxa buux dhaafiyay dhaawacyada waxaana qaraxu uu gabi ahaanba dhulka dhigay dhismayaal badan. wariye ka tirsan BBC-da oo goobta tagay ayaa sheegay in meydad badan oo halka yaalay iyo burburka dhismayaal badan ay ka dhigeen dekedda magaaladaasi mid aan la gali karin. qaraxa ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasi u ah Lubnaan iyadoo dhaqaale xumida taagan ay sii kala fogeynayso bulshada. sidoo kale jimcaha ayaa la filayaa in maxkamad ay go'aan ka gaarto dilkii ra'iisul wasaarihii hore ee wadankaasi Rafiq Hariri loo geystay 2005. maxaa dhaliyay qaraxa? mas'uuliyiinta Lubnaan ayaa sheegay in baaritaanada hordhac ah ay tilmaamayaan in qaraxu uu ahaa shil ee aan si ula kac ah loo fulin. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in maadada ammonium nitrate ee sida weyn u qaraxda lagu keydiyay maqsin ku yaala dekedda. ra'iisul wasaare Xasan Diyaab ayaa qaraxa ku tilmaamay musiibo waxa uuna wacad ku maray in lagu la xisaabtami doono kuwa mas'uulka ka ah. waxa uu ka hadlay makhaasin khatar badan oo dekedda ku yaala tan iyo 2014 balse waxa uu intaasi raaciyay in aanu ka hor dhici doonin baaritaanada. مسؤول كترسن دولة إسرائيل أي BBC-da u sheegay in dalkaasi aanu wax lug ah ku lahayn qaraxa Beirut. qaraxa maadada ammonium nitrate ayaa hawada ku sii deyn kara gaas sun ah. warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in dad weli ku hoos jiraan burburka dhismayaasha. qaraxa ayaa laga maqlay jasiiradda Khubrus oo Beirut u jirta 240 kiiloomitir kuna taala bariga Mediterranean-ka. madax badan oo caalamka ah ayaa ka tacsiyay musiibada halkaasi ka dhacday. ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray sawirada iyo muuqaalada caawa ka imaanaya Beirut waa kuwa argagax leh waaynu u duceynaynaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi argagax leh. waxa uu intaasi raaciyay in dawladdiisu ay hil iyo hool la garab taagan tahay shacabka Lubnaan. xaaladda Lubnaan qaraxa ka hor xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan Lubnaan waxaana dhacay mudaharaadyo looga soo horjeedo qaabka ay dawladdu u maareysay dhaqaale xumida dalkaasi ka taagan oo ah tii ugu darneed tan iyo dagaalkii sokeeye ee socday 1975 ilaa 1990. inta badan shacabka ayaa dhaqaale xumida u aaneynaya madaxda dalkaasi muddo soo hogaaminayay ee keeni waayay isbeddel xal u ah dhibaatooyinka wadankaasi ragaadiyay. shacabka dalkaasi ayaa la tacaaliyay koronto la'aan, biyo yari iyo daryeelka caafimaad oo ah mid aad u liita. qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow halkii lagu beegsaday ra'iisul wasaarihii hore Rafiq Hariri oo 15 sano ka hor lagu dilay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay.